بلا وي سودو صاحبيال وصاحبك نبلوي اكتب كتوان اللي حد waxaad ku bardo doontaa import data and objects import data sida xog loo soo gelinayo xog external ah sida excel loo soo gelinayo iyo waxaad ku bardo doontaa objects qodobada aad ku bardo doonto waxa kamid ah ko import data from pdf import live data from web insert objects create objects objects waxa kamid ah sida word sida loo soo geliyo powerpoint iyo wixii lamid ah cutubkan waxaad ku baran doontaa import data and objects aad ku baran doontaa sida xog loo soo gelinayo excel iyo sida loo soo gelinayo objects aad ku baran doontaa xogta la soo gelinayo waxa kamid ah hadii ay tahay xogta pdf hadii laga keenay website oo kale hadii ay tahay notepad wax meesha ka keen database hadii ay tahay hata waa soo geli kartaa qaabka loo soo gelinayo xog external ah iyo waxaad ku baran doontaa sida loo soo gelinayo objects waxa kamid ah ha xogta video ha ahaado word ha ahaado powerpoint ha ahaado mina xog ina isku keento wax dhan microsoft excel ayaad ku baran doontaa muuqaalkan hadaba aan bilaawno qodobka koowaad aan ku baran doono waxa waay waa midkan ay ku qoran tahay import data from pdf ina soo geliyo ayaa u baahanahay tusaale marka aan rabo ina pdf soo geliyo waxaan tagayaa sheetkan ayaan rabaa inaan soo geliyo pdf waxa ku dhufinaysaa data tab kadib waxaad ku dhufinaysaa meeshan qoran tahay groupkan get and transform data halka meeshan ku qoran tahay ayaad ku dhufinaysaa halkan ay hadii ku saaran tahay waad ka soo dooran kartaa hadii ku saarneen meeshan aad ku dhufinaysaa ay ku qoran tahay get data kadibna from file intee ka soo qaadanaysaa xogta waa kuwaasa ayagoo dhan hadda waa workbook hadii aad u baahan tahay hadii aad u baahan tahay notepad hadii aad u baahan tahay xml hadii aad u baahan tahay formkan loo qoran tahay johnson hadii aad u baahan tahay pdf folder hadii aad u baahan tahay hadii aad u baahan tahay powerpoint folder hadii kale database u baahan tahay halkan ka soo dooranaysaa kuwan kalena waa soo door kartaa meeshii aad u baahan tahay hadii intaas aad ku weydiiso from others ku dhufinaysaa kadibna halkan aad soo dooran kartaa meesha aad u baahan tahay ani hadda waxa u jirtaa from file meesha aan soo gashanayo fileka kadibna pdf aad dooranaya kadib pdf kaada meesha ku yaalo ayaad soo raadinaysaa ani hadda waxa ii yaala desktop ka ii yaala desktop ayaa ku dhufanaya kadib ms excel course ayaa ku dhufanaya tusaale waxaan rabaa inaan soo geliyo pdf kan halkan qoran tahay hadii ku soo muuqanin ee halkan ku furan tahay waxa ay ku dooran tahay all files ayaa ku dhufanaysaa si ay u soo baxaan xogta dhan meesha ku jirto folderka pdf kan ayaa u baahanay waa ku dhufanaya pdf ka kadibna import aan leeyahay okay marka aad sidan kugu soo baxdo ay ku qoran tahay navigator halkan waxa ku soo qabanaya meeshii tableska diyaarsanayaan ayaa ku soo qabanaya halkan hadii aad ku dhufato waxaad arkaysaa table halkan hadii aad u baahan tahay waxaad arkaysaa table ani hadda waxa u baahanahay table kan ayaa u baahanahay kadib labadan qaab waa dhihi karaa transform data hadda waxaan ka bedelayo waxa hadii aan ku soo darayo waxa hadii aan ku jarayo transform data inta ku dhufto ayaa waxa la aadi karaa power query hadii kale load ayaa dhihi karaa hadii aan u baahanahay file cusub ina ii sameeyay hadii aan u baahanahay halkaan ku dhufanaya kadibna load to ayaa ku sii dhufanaya hadii aan u baahanahay waa kana file-ka aan rabo ee halkan ka door karaa hadeer waxaan rabaa in aan liigo sameeyo xogtaan soo gelinayo table ayaan rabaa hadii kale pivot table hadii kale pivot chart hadii kale only create connections xiriir bis ii sameey marka ani hadda waxaan rabaa in la ii sameeyo table ayaan rabaa sidoo kale xogta inta dhigaysaa new worksheet miya am existing worksheet waxaan rabaa existing worksheet and text dhigaysaa ana hadda salka ii dooran yahay a1 ayaan rabaa in la iga dhigo okay kadibna okay ayaa leeyahay xogtii ayaga dhan waa la soo gelinayaa waa kasa hadeer waxaa la soo geliyay xogtii ayaa halkan la soo geliyay xogtan hadii aan mid kamid aan tuuro xogtaan fiiri waxa ku tusi doonaa waxa meesha ka jiro tusaale waxaan tuuray midkan ay ku qoran tahay to do oo kale ayaan tuuray folderkan fiiri waa wada dooranaya ayaga dhan kadibna delete ayaan dhahay ama right click inta ku dul leeyahay kadibna waxa leedahay delete waa kasa
hadeer waxa turtay folderkan hadaan rabo ina isbedel ina sameeyo in kale si aan ku ogaan karaa tusaale halkan ku dhufanaya kadibna table design ku dhufanaya kadib refresh dhahay refresh marka dhaho waa kana waa soo laabanaya dhibaatadan sidee uga hortay karaa sababta keentay inaad soo laabto waxa waay connection ayaa jiro waxa uu ku xiran yahay power query ayuu ku xiran yahay sidee ku ogaan karaa inaad ku xiran yahay in kale haddii aad ku dhufato xogta kadibna halkan waxa ku dhufan kartaa query sidoo kale haddii aad xogta adigoo joogo data tabka adigoo halkan joogo waxaad ku dhufan kartaa qaybtan existing ma jiro halkaas ku dhufanaysa connection kadibna waa kana wuxuu ku xiran yahay waa connection ka uu jiro ee halkan ku sheegaya sidoo kale halkan ay waxa kaaga soo baxayo soo jeedidba query and connection ay halkan kaaga soo baxaya ana hadda waxaan rabaa inaad ku dhufto query ayaan ku dhufanaya kadib edit ayaan ku dhufanaya haddii kale halkan double click ku sii karaa edit ayaan ku dhufanaya kadib waxa ku soo kacayo power query ayaa ku soo kacayo haddii aad u baahan tahay inaad si fiican u barato power query aad ayuu muhiim u yahay marka hadda anaga waxa ka isticmaaleynaa qaybtana ka isticmaaleynaa waxa u baahanahay inaad tiro numberskan oo kale ay u baahanahay meeshaan u baahanahay inaad tiro aad tagaya ama halkaan aan rabo inaad tiro right click ku leeyahay kadibna remove ayaa leeyahay waa kaasa hadda waa ka baxay halkaan sidoo kale shaqada aan qabanayo halkaan ka arki kartaa marka asigoo faahfaahsan gudaha sii galayo waxa leedahay load and close halkan waa dhihi karaa sidoo kale cancel inta dhaha load dhihi karaa marka halkan ka fiican oo ah close and load xir soo geli hadda soo jeedidba lambarada waa laga saaray hadda fiiri marka aan ku dhufno table design aan dhahno refresh waa kana ma soo laabanayo waayo qaybta power query ayaan ka soo tirnay waxaan filayaa inaad fahantay sida loo soo gelinayo PDF sidee loo soo gelinayaa xog wadiyad website aad gasho tusaale fiiri waxaan tagayaa browserada mid kamid ayaan soo kacsanayaa marka aad soo kacsato browserka search barka ay soo shaaratid weydii kartaa tusaale waxaan la weydiinayaa shortcuts for excel table shortcut kan ayaa qoray su'aashan kadib enter dhahay su'aashan oo kale ayaa weydiiyay kadib waxaan ku dhufanayaa Microsoft support halkan ayaa ku dhufanaya ay ku qoran tahay website kan ayaa galaya website kan marka waxa uu leeyahay shortcut-yadan ayaan u baahanahay hadda inaan qaato qaabkee u qaadanaya anigoo waxba anagaan dhihin sidaan copy anagaan dhihin xogtan sidee ku qaadan karaa waxaan rabaa inaan qaato linki kore bis ayaan copy-sinaya linki kore marka saas u doorato right click ku leedahay copy ama control C ayaa dhihi kartaa okay waxaan tagayaa marka mid kana waa iskaga laabanaya oo waxaan tagayaa excel ka ayaan joogaa excel ka qaabkee u soo gelinaya marka tusaale halkaan ku dhufanaya sheet kan inaan soo geliya u baahanahay si aan soo gelinaya waa isla wadadii hadda waay data tab ku dhufanaysa kadibna get data soo geli inta soo geli rabtaa waa kana hadii inta karaadi marka aniga hadda waxaan rabaa from others marka ku dhufato halkaan waa soo door kartaa from web ama banaankan ay ii saaran yahay waa kana from web website ka aan soo qaadanaya kadib halkan waxa dhigtaa URL linkigaas soo koobisatay ayaa halkan dhigaya right click ku leeyahay paste ama control V ayaan dhigi karaa halkan linkiga waa dhigay kadib okay ayaa leeyahay waa ka waa wareegaya waxa ay sugaysaa waa ina laakiin internet kugu xiran yahay computerkaada maadaama adiga ka soo qaadanayso website hadda soo jeedidba waxa uu soo kiciyay navigator waxa uu ku kooban yahay hadda waxa isoo siiyay qayb intaan dhan waxa isoo siiyay shortcut intaano table shortcut ku jiro tusaale midkan haddii aad ku dhufato waxaad arki kartaa shortcut-ka loo isticmaalayo use access keys for ribbon waxa loo isticmaalayo shortcut halka ku dhufan kartaa work on ribbon sida loogu shaqeeyo ribbonka halkaan aad fiiri keyboard shortcut navigation in cells shortcut-yadu halkaan ka arki kartaa waxyaabo badan jiro oo loo isticmaalayo sida shortcut-yada formatting oo kale halkaan ka arki kartaa laakiin waxa u baahan oo kale frequently used shortcuts frequently kuwa loo isticmaalka badan yahay oo kale waa kuwaasa marka kuwani waa kuwa default-ga uu ku siinay tusaale drawing oo kale hadaan u baahanahay shortcut-keeda waa ka halkaan ka fiiri karaa soo kale work with cells oo kale hadaan u baahanahay waa kana soo kale shortcut-yada
كجرو shortcut working on the objects oo kale waa ka halkan ka arki kartaa marka aniga hadeer waxa u baahanahay midkan oo kale ay u baahanahay midkan u baahanahay ayaa ku dhufanaya hadaa rabtid inaad aragto labadan tab u kala leeyahay qaybtan waa sida website-ka ka arki lahayd website-ka halkan ka arki kartaa qaybtan waa table view table qaabka ka arki lahayd load waa dhigi kartaa sidoo kale waxaan dhigi karaa transform data datada wax ka bedel transform data ayaa ku dhufanaya marka si aan hore ugu soo kiciyo power query-ga transform data ku dhuftay kadibna waa kasa waxa soo kacay power query ayaa soo kacay power query editor hadeer waa kana waa diyaarsan yahay maxaa ka sameeynaya tusaale haddii aan u baahanahay midka koowaad oo kale rogan koowaad haddii aan rabo inaad tiro halkan ku dhufanaya remove kadibna remove top row waxa raba row koowaad oo kale in laga tira raba remove top row dhahay waa kasa number of row number ka rabta inaad tirto ani hadda waxaan rabaa in laga tiro number 1 oo kale number 1 qoray kadibna okay waa kasa waa baxay hadeer rowgi waa iga baxay halkan maxaan ku qoranayaa magacyo ayaan ku qoranayaa magacana raba column 1 iyo column 2 ina bedel column 1 ka ayaa raad kale ku duleeyahay kadib rename waa kasa magac ka bedel waxaan ku qoranayaa halkan hadeer waxa waay to do halkan waxaan leeyahay halkan imaanaya right click kadibna rename kadibna waxaan leeyahay shortcuts oo kale aan ku qortay kadib enter leeyahay waa kasa hadeer xogtii waa diyaarsaday saas oo kale marka aan yeelo wax kale oo soo darsan karaa kadib waxaan leeyahay load close and load waxa ay sugaysaa asiga ayaa soo galaya marka xogtii aan sameysanayn shaqada waa wada waa ka halkan saa u jididba akala frequently used shortcuts hadeer halkan ayaa soo gelinay haddii aan u baahanahay marka table-kan oo kala design-kiis ina bedelo hore ayaa u soo baratay table design-ka ku dhufanaysaa kadibna waa kuwana design-ka ratid ayaa halkan ka isticmaali kartaa haddii adii themes-kan ku qancinin waa iska bedeli karaa oo themes kale ayaan saari karaa oo waxaan ku dhufanayaa page layout kadibna waa kana theme nooca rabta midkan oo kale ayaa raba midkan theme-ka aad u baahan tahay ayaa halkan soo dooranaysaa mid koowaad oo kale ayaa doortay waa kana hadeer cagaar ayaa meeshan isku bedeshay table design-ka ku laabanaya waa kasa design-ka ratid ayaa halkan soo door kartaa waxaan filayaa inaad fahantay qaabka loo soo gelinayo from web okay casharka xiga ama qodobka noo xiga waxa waay insert objectives sidee loo soo gelinayaa waxyaabo objective wax walba oo ahaan kara sidee loo soo gelinayaa waarka ayaa si fiican uu soo sharaxay object sida loo soo geliyo hadeer waan ku tusayaa marka sidee loo soo gelinayaa object tusaale waxaan rabaa inaan soo geliyo PowerPoint inaan halkan soo geliyo u baahanahay meesha aan rabo inaan soo geliyo ayaan tagayaa halkan horteeda ku dhufanayaa kadib waxaad ku dhufanaysaa insert ayaa ku dhufanaysaa insert tab kadib text groupkan hadda waa la isku keenay groupkan ayaa halkan ay xirbaashan text markaad ku dhufato waa kana groupkan ayaa ku soo baxayo haddii banaanka ku saaran yihiin iyo haddii kaleba adiga waxaad raadinaysaa groupkan ku qoran tahay text kadib halkan ayaad ku qoran tahay object halkaas ayaa ku dhufanaysaa kadib waxa ku soo baxayo filekan meeshan create new mid cusub ii samee halkan waxa waay create from file mid ii soo qaad way mid cusub ii samee maraba hadeer waxa raba inaan soo geliyo mid hore u jiray inaan soo geliyo raba create from file ayaan ku dhufanaya kadib browse ayaan leeyahay halkaas ayaa ku dhufanaya kadib waxaad soo dooranaysaa meesha ku yaala file-ka desktop-ka ii yaala Microsoft Excel course kadibna waxa u baahanahay file-kan qoran tahay my template halkaas ku dhufanaya kadibna insert ayaan leeyahay okay labadan qaab ayaa jirto link ahaan u dhigo oo asiga dhan marka lagu dhufto soo kacay aan u baahanahay link aan hadda uma baahan soo kale display icons waa dhigi karaa icon ahaan igu soo bandhig oo icon-kan halkan waa ka bedeli karaa midka rabo icon-ka ayaan saari karaa magacan halkan waa ku qori karaa kadibna okay ayaa leeyahay kadib okay waa sii dhigi karaa aniga hadda waxaan rabaa inaa tusaale fiiri midkan oo kale ayaan ku deenayaa okay ayaan dhahay waa kana icon-kii hadeer waa Excel
wato PowerPoint waay bahalka marka sidee ku ogaanaya inuu PowerPoint yahay in kale markaan double click aan ku siiyo waxa soo kacayo PowerPoint waxa soo kacayo waa kaas waa PowerPoint waa kaas halka marka aad dhamayso Excel ka ayuu ku laabanaya waa kaas aan filayaa inaad fahanti haddaan rabo inaan wax ka bedelo right click ku leeyahay kadibna waa kana percent objectives kadibna edit ayaan leeyahay wax edit garay haddii aan u baahnayn icon kan u baahnayn oo PowerPoint slide kiisa hore in la arko haddii aan u baahnahay midkaan ayaan qabanaya marka hore iska tuuraya kadib waxaan leeyahay insert waa jooga text object kadibna create from file browse waxaan soo qaadanaya filekii my template insert kadib ana waxba dooranin ayaan waxaan leeyahay okay waa kaasa halkan la keenay waxaan soo qabanaya halkan ay xoogaa soo dhaweynaya waa kana hadeer waa slide-ka koowaad waay waa tusaale waay haddii aniga fiiri edit aan u baahanahay oo kale ama haddii aan rabo inaan arko double click ku siinaya waa isla sidii hadda waay waxa soo kacay PowerPoint halkan oo wadaya waa kaasa marka dhamaysidna marka haddii aad daawato waxaad ku laabanaysaa Excel haddaan rabo inaan edit gareeyo right click ku leeyahay hadeer hadda saa u jeedid inta aan sameeyay ka hor hadeer marka halkan joogtid waa Excel waay PowerPoint isku bedelaysa marka edit aado fiiri halkan ku dhufanaya right click edit kadibna edit ayaa ku dhufanaya wax ku dar ama wax ka jar waa kaasa edit markaan dhaho halkan saa u jeedidba waxa isku bedeshay PowerPoint sida waxa u jeedaa insert draw waa kana transitions animations kuwaani ma lahayn Excel haddii meel banaan aan ku dhufto waxa ku laabanaya Excel ayuu ku laabanaya waxaan filayaa inaad fahantay sidoo kale haddii aan u baahanahay Word oo kale inaan soo geliyo halkan ku dhufanaya kadib isla wadadii hadda waa insert ku dhufanaysa kadib text object ku dhufanaya kadibna create waa kana halkan waa ku soo geli karaa haddii aan u baahanahay mid cusub oo kale Word cusub haddaan rabo inaan abuuro halkan ayaa ku dhufan karaa create new kadibna halkan aad soo door kartaa tusaale hadeer waxa socdo Adobe Photoshop sabarada halkan waa soo geli kartaa sidoo kale Microsoft Graph halkan waa ka sameey kartaa PowerPoint halkan waa ka sameey kartaa PowerPoint-tii hore ayaa halkan ka sameey kartaa sidoo kale PowerPoint slides halkan waa ka sameey karaa ana hadda waxaan u baahanahay Microsoft Word document midkaas dooranaya kadibna okay ayaan leeyahay waa intaas kaliya okay markaan dhaho box series ay halkan laga sameeynaya box kana soo qaadaya xooga horta halkan keenaya si aad u fahanto box kan wax rabo ku qori kara kana ayaa iska bixinaya si hadda rabo waa kana qabanaya korkiisa soo saaraya fiiri halkan ama la keenay okay halka hadeer waxa rabo in wax ku dardaro right click leeyahay oo isla wadadii hadda waay right click waa kana edit ina wax ku qoran rabaa Word ayaa isku bedeshay saa u jeedid asigana waa Word oo kale waay halkan ay wax rabo ku qori karaa tusaale waxaan leeyahay this lesson you will be learning how to import data and objects ayaan ku qoray kadibna haddii aan u baahanahay oo kale midkan waa qaladay right click ku leeyahay kadibna lessons ayaa laga rabay okay sadarka markaan dhimi oo kale inta leeyahay sadar cusub ayaa la geenaya waa kana sadarka hore halkaas ka arki kartaa sidoo kale waxa qori kartaa wax kale tusaale waxa dhahday sida wax ku bar kartaa waxa leeyahay import data from PDF enter kadibna waxaan leeyahay import PDF ama waxaan leeyahay import data from web enter kadib waxaan leeyahay insert objectives waa kana adiga waa in wax lagu qori karo ayaan ku tusay haddii aan banaanka aan ku dhufto waa kana waa wada baxaya sidoo kale waa qurxi kartaa warkii soo barnaysay ay halkan ku dhax isticmaal kartaa haddii aad iska tuuraysid waa dooranaysaa delete ayaa leedahay waa intaas kaliya midkaan haddii rabo inaad tuuro waa dooranaya delete asina waa baxaya waxaan filayaa hadeer inaad baratay sida loo soo gelinayo PDF sida loo soo gelinayo data from web insert object
sida loo soo gelinayo objectiyo, sida loo soo gelinayo, sida loo abuurayo objectiyo. waxaan filayaa in aad muuqaalkan aad si fiican uga bogatay. fadlan la wadaaga asxaabtaada, haddii aad nagu soo biir muuqaalkan like saar. السلام عليكم.